السلام عليكم magacaygu Axmed Diiriye waxaan ahay baraha dhigi doona maadada cyber security-ga 101 kooraskan waxa baran kara cid walba oo laga helo shuruudahan soo socda waa qofka waa inuu passion leeyahay xiiseynaya barashada cyber security-ga oo qof doonaya xirfadiisii halka uu taaganaa inuu kor u qaado iyo qof doonaya inuu cyber security-ga ku soo biiro marka lagagama baahna background-kaagu ama inuu aad xariif aad ugu tahay IT-ga laakiin basic-ka computer-ka sida loo isticmaalo qayb bay ka noqonaysaa qofka networking-ka soo bartay qofka programming-ka soo bartay qofka multimedia soo bartay intuba ama IT-ga guud qofka soo bartayba waa ku soo biiri karaa kooraska qofka kooraskan cyber security-ga barta wuxuu ka faa'iidayaa inuu ilaalin karo xogtiisa dhex taalla internetka ama xogta digitalka hadduu ilaaliyo xogtiisa digitalka taasi waxay u saamaxaysaa inuu ilaalin karo xogta dhex taalla shirkadaha isticmaalaan baahi weyn oo loo qabo cyber security-ga ayuu dabooli doonaa qofka barta xirfadda cyber security-ga baahidaasna waa baahi mar walba taagan intuu jiro internetku xirfadda cyber security-ga IC Square company-ga loo yaqaan IC Square wuxuu soo saaray research ah in 3.5 milyan oo boosaska cyber security-ga ilaa hadda la buuxin kar leeyahay adduunka oo dhan marka qofka xirfaddan barta wuxuu chance u helayaa inuu shaqooyinka bannaan buuxin karo haddaba cid walba xiiseynaysa barashada cyber security-ga waxaad ku soo dhawaataan hoyga barashada technology-ga casriga ah ee TXC Technology wixii faahfaahin dheeraad ah ee kooraskan la xiriira iyo koorasyada kaleba waxaad kala soo xiriiraan lambarada shaashada ku qoran waad mahadsantiin